dalka soo tagay Imaaraadka Carabta kaasoo noqon doona safarkii labaad tan iyo markii xilka madaxweynaha loo doortay bishii Febraayo sanadkan. Xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa muddooyinkii u dambeeyay aad u liitay kadib markii xiisada khaliijka ee xukuumadda Soomaaliya ka qaadatay mowqifka dhexdhexaadka taasoo u horseeday mowjado siyaasadeed iyo gudaha iyo dibadda ugu furmay. safarka ayaa lagu sheegay inuu ka duwan yahay socdaalkii bishii Abriil ee lagu micineeyay isbarasho waxaana uu ku soo aaday xilli xaalado siyaasadeed oo isbiirsada ay taagan yihiin sida mowqifka dowladda Soomaaliya ay ka qaadatay khilaafka khaliijka faragelinta siyaasadeed ee Imaaraadka uu ku hayo arrimaha gudaha Soomaaliya tusaale ahaan taageerada Imaaraadka ee maamul goboleedyada kuwaasoo horey ula saftay isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka ee xiriirka u jaray Qatar. xaalado kala duwan oo siyaasad iyo amni ayaa ku hareeraysan safarka madaxweyne Farmaajo ku tagay Imaaraadka oo siyaasadihiisa faragelineed iyo dunida Carabeed iyo qaar ka mid ah wadamada Aasiya ay galgaleen waxaana ka dambeeyay kacdoonkii lagu riday madaxweynayaasha Masar, Liibiya, Tunisia, Yemen iyo kuwa kale. madaxweyne Farmaajo ayaa olole xoogan ugu jira isfaham buuxa oo la gaaro qoysaska kala maamula Abu Dhabi iyo Dubai si uu u xakameeyo galaangalka siyaasadeed ee ruuxay dowladiisa labadii bil ee ugu dambeeyay. muhiimada koowaad ee safarka madaxweynaha Imaaraadka Carabta ayaa ah inuu ugu horeen uu soo xiro albaabka siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada oo Imaaraadka Carabta ay taageerto. tan labaad waxaa hubantay in madaxweyne Farmaajo la hortagayo Imaaraadka siyaasado furfuran iyo tanaasulaad iyadoona la og yahay ragga ku hareeraysan ee xafiiskiisa jooga inay xiriir dhow la leeyihiin Qatar go'aanada fila Soomaaliya ay wax ka gooyaan. safarka madaxweynaha uu ku tagay bil ka hor boqortooyada Saudi Arabia ayaa la rumaysan yahay inuu yareeyay culays saarna dowladiisa waxaana hadda madaxweynuhu doonayaa inuu bog cusub oo u furo xiriirka dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka oo ah dalal kala dhaxeeya iskaashi dhinacyada kala duwan leh. arinta kale oo iyana lagu